السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada saaxiibayaal waa barti dhacay maale oo aad kaga barateen inaan hadba idiin soo rujino mowduucaan isleenahay muhiim buu yahay bulshada Soomaaliyeed in looga iftiimiyo suugaanteena iyo kaalinta aadanaha. maanta haddii Allah awooda la qadaro waxaan idiin soo ururin doonaa suugaanta ka hadashay dhaqaalaha sida qof kasta uu la socdo nolosha aadanaha waxaa maaragtay door lixaad leh ama lafdhabar leh ka qaata dhaqaalaha. suugaanta Soomaalidana meel ay ku diisay ma leh wax kastoo nolosha muhiim u ahaa. waxaan idiin soo xuli doonaa oo halkaan idinku soo qaadi doonaa suugaanta aan isleenahay doorka ay u yihiin ama safka hore ayay kaga jiraan suugaanta lagaga hadlay dhaqaalaha. waxaan ku horeyn doonaa suugaan uu leeyahay hal abuurkii weynaa ilaahay cimrigiisa deystay hees caan baxday oo Soomaalidu u taqaano heesta aan gaboobin oo mar kasta xilli kasta qof u noloshiisa ay qusaydo. waa hees uu leeyahay ilaahay cimrigiisa deystay abwaan محمد آدم دعر سورة لقاهان وقاضو صالح قاسي الناجي oo loo yaqaano waxaan ku leeyahay waqtiguna casaysana waayuhu niyo badan ogaa dhalintu waji garadsana weelkaagu haddaanu buuxin wax saarku ku qaban ogaa weedhaadu Itaaliyara walaalkaa kolay ku tahay baryadu weedeysana waxayntu mar fiicana. heestan oo runtii loo yaqaano waxayntu mar fiicana magacaas ku caan baxday oo suuq ahaan uu qaado Saalax Qaasin ayaa ah heesaha golahoraadka ka ah marka laga hadlaayo suugaanta Soomaalida iyo dhaqaalaha. waxaa ku lamaanan oo aan ka harno aad loogu xasuusaa hees uu leeyahay hal abuurkii weynaa fanaankii codka laasiga lahaa ninkii codka qaraamka ku caan baxay Soomaali aadka u jecel Ilaahay u naxariistay Faysal Cumar Mushtaaq hees uu leeyahay oo magac ahaan loo yaqaano lacagay. heesaas waxaa qaaday Faysal Cumar Mushtaaq qof kasta oo maaragtay dan ka gashaa inuu ka hadlo suugaanta iyo dhaqaalaha waxaa qasab ku ah inuu heestaas soo qaato waayo waa heesta kaliya sida gaarka ah loogu xusay magaca lacag. wuxuu Faysal Cumar Mushtaaqna leeyahay ragga kala labeeyay haween lahashadooday dhiitaha gargaaray laqan hoos u celiyay intaan anigu loo faray een horay u lumiyay larkeedii habeenadan hiblow ladiba waayay. Faysal Cumar Mushtaaq wuxuu ku farayareystay uu aad ugu nuxnuxsaday lacagta iyo qiimaha ay nolosha u leedahay iyo maaragtay qofka laqan fariidka ah mararka qaar hadduu dhaqaale la'aan haddii ay ku dhacdo inay hoos u dhig ku samayso qiimihiisii uu bulshada ku lahaa ama kaalidiisii hoos ay u celiso. qof maaragtay doqon ahaa ama dadka liitaha ah markuu leeyahay liitaha gargaaraay qof dadka u yaqaaneen qof liita u yaqaaneen yaa hadduu xoolo yeesho dadka boqor u noqdaayo uu horboodaa. lacagta ayuu ku sheegay tan ragga kala saarta ee nina kor u qaada nina hoos u dhigta haween lahashadooda wuxuu ku sheegay in haweenka aad u jecel yihiin maaragtay lacagta iska raacaan. waa tirinka xaakimka ahaa uu yiri haddii doofaarka lacag lahaan lahaa haweenka duulka ay u guuri lahaayeen. abwaanku wuxuu qayb dambe suugaanta ku leeyahay intaan aniga loo faray een horay u lumiyay larkeedii habeenadan hiblowladiiba waayay. intaan aniga qasaari loo faro waxa loo yaqaanaa qof wax lumiya ayaa loo yaqaanaa. Soomaalida kala badan ee kala taqaanay ayaa suuragal ah. koonfurta Soomaaliya waxaa looga yaqaanaa laal ninka maaragtay xoolaha daayaca sida maaragtay u bixiya siyaadada u bixiya. intaan aniga loo faray een horay u lumiyay larkeedii habeenadan hiblowladiiba waayay. waxaan ka ladila ahay oon ka raaxaysan la'ahay hurdideedu isu raaci la'adahay intaan aniga horay u lumiyay yaan maaragtay xusuusanaya oon go'anaya oon tegi lahaa maanta in la ii soo celiyo ayuu Faysal Cumar Mushtaaq halkaas la maray. waxaan raacin doonaa hees uu leeyahay Saciid Xarawo oo cod ahaanna ay qaado Caasha Abdul Suleymaan Malaa'ika hees ballaaran oo jacayla oo Soomaalidu aad ku taqaano qayb ka mid ah meerisyo ka mid ah ayaa waxaa ku jira dhaqaalaha iyo qiimaha ay nolosha ku leeyihiin. abwaanku maaragtay si farshaxan fiican leh oo yaro u taabta wuxuu hal abuurkana leeyahay hanti nimaan lahayn baa loo heelanayne waa hub adduunyadu hanti nimaan lahayn baan loo heelanayne waa hub adduunyadu. wuxuu leeyahay nimaan xoolo lahayn baan la garab joogsanayn baan loo gargaarayn baan maaragtay garab iyo gaashaan loo noqonayn waa hub adduunyadu. ciil waayuu leeyahay adduunyada xoolo la'aan ayuu maaragtay sida halkaas ayuu isla la maray. waxaa kaloo jirto hees uu qaado Yaxya Cabdi nin Jabuutiyaan oo Soomaalida ku taqaano isna maaragtay hees ayuu wuxuu ku farayareystay dhaqaalaha iyo qiimaha ama kaalinta ay nolosha kaga jirto. wuxuu leeyahay garta waxaa la siiyaa ninkii guunya haystee nimay gacantu maran tahay
cidi garanba maysee garta waxaa la siiyaa uu yidhi ninkaas halabuurka ah wuxuu yidhi waxaa garta la siiyaa ninkii guunyo haysta haddii ay noqoto inay gar dhigtaan ama ma aragtaaye ay gogol dhigtaan laba nin oo is haysata wuxuu leeyahy waxaa garta la siinayaa ninkii guunyo haystay ninkii xoola ama cuud haysto ayaa la siiyaa garta la siiyaa inay gacantu maran tahay cidi garanba maysee qof garanaya oo gartiisa arkaaya aanba jirinba ayuu leeyahay waxaan ku soo gabagabeynaynaa geeraar ku jiray riwaayadii sharxii la tumayey sheeka ka dambeysay uu karjeesta lahaa wuxuu leeyahay maalmoodka dambeeyo maxaa ismuuna qabaa markiid haysid isii markiin haayana qaado anigu meel gaari karaa wuxuu leeyahay maal moodka dambeeyo xoolo laga dhimanayo maxay qiimoo leeyihiin markiid haysid isii oo gacanteeda ka qaado gacantaadana igu sii anigu meel gaari karaa wuxuu leeyahay in marmar la iscaawiyo waana dhaqanka saxda ah ee diinteena iyo dhaqankeena suuban ee Soomaaliga uu nafaraayo in qofka wax dheer yahay oo gacanta u taagaa isagala kalkiisa oo ka qaataa qofka galada ama waxsiinta ay kala dhaxayso inta ayaan ku soo gabagabeynayna mowduuceena kaga hadlaynay suugaanta Soomaalida iyo dhaqaalaha haddii ay jirto suugaan as leedahay muhiim ay u tahay barnaamijkan ama as leedahay mid kale ma aragtay nuxur leh ayuu ka tagay Daaimaale noogu soo qor qaybta hoose ee faalada aad u mahadsantihiin